shirkaddii LSSC ugu dambayn way kacday wayna xirmatay jimcadii haddeertan ayay ku dhawaaqeen mulkiilaha shirkadda ama manajerka ninka la yidhahdo Francois ayaana u sheegay dhammaan dadkii maal gashaday ku yidhi dowladda maraykan ayaa nagu daba jirto oo lacagaheennii xayirtay xanibtay aarta meel walbaa joogtaa waa salaaman tihiin waa maxamed faarax dee horaan ooga digay dhowr bilood ka horaan ooga digay dadka in shirkaddan LSC scam tahay been tahay una sheegay kuna eri ha maalgashanina haddaba ugu yaraan bil iyo bar ka hor lacagta dadkay siin jirtay shirkaddan way joojisay jimcadii haddeertaana waxay ku dhawaaqday inay meeting u qabato dadkii maal gashaday shirkaddan LSC Francois wuxuu sheegay in dowladda maraykan ee baaraysa ku dhegan tahay dadkii lacagaha la siin jirana hasaraad ay ku xaniban yihiin wuxuu kaloo sheegay ilaa baarista inay qaadan doonto March 2027 almost 2 sano ayay qaadanaysaa inay dowladda maraykan ka baarto soo ogaato marka wuxuu yidhi intay dowladda maraykan baarayso shirkadda LSC iyo dadka lacagahooda wuxuu yidhi waxaan idinkula talin lahaa dadkan LSC maalgashadayo inaad shirkad kale maalgashataan oo magaceeda la yidhaahdo Ace Alliance waxayna hoos tagtaa yidhi Crown Cryptocurrency Investment Group Singapore ayaana laga leeyahay marka shirkaddan Ace Alliance waa sidii oo kale yidhi maalgashada lacagihiina waad helaysaan lacagta idinka maqanna dowladda maraykan ayaa baarayso ilaa March 27 ay qaadanaysaa again sidoo kale waa been qaabuu lacag ku cuno ama uu ku sii dhaco ayuu raadinayaa 5 milyan oo qof ayaa member ka ahayd LSC marka dee lacagihii uu ka dhacay ayuu wuxuu rabaa lacag kale haddana inuu ka sii dhaco warbaahinta maraykan ayaad qortay TV-ga la yidhaahdo WFTV9 iyo journaalkii la yidhahdo The Southern Examiner ayaa qoreen sheegeenna in shirkaddan ay scam tahay jimcadiina meetingka uu yidhi Francois inuu ku yidhi dadkii maalgashaday shirkadda inay joojiso shaqada lacagna dad hadda ka bacda la siinaynin marka dad badan oo maraykan ayaa cabtay cabasho suumiyey reportna bixiyey tusaale ahaan WFTV9 waa local channel laga leeyahay Florida dad badan oo Florida ayaa maalgashaday FBI-da u tageen dacway xareeyeen warbaahinteena la hadleen waxay u sheegeen scamkan ay aamineen lacaga badan qaar 12,000 ay sheegeen inay ka maqan tahay lacagihiina ay hadda joogsameen in la siiyo sidoo kale journaalka la yidhahdo The Southern Examiner ayaa dad badan oo kale cabteen oo maraykan oo sheegeen lacaga badan inay ka maqan tahay shirkadda LSC iskuuradana ay qiyaantay dadkan waxay sheegeen qaar xataa familiyadana is dagaaleen qaar xataa guurkii inay ku kala tageen lamaana isqabay in intay wada galeen businesskan dheheen adaa ii keenay iyo adaa dhaha lacagteeda maalgashay iyo savingkooda inuu ka dhumay in lacag malaayiin dollar inuu ka dhuntay marka labadan journaalba waxay suggestion dhaheen cid allaala ciddii ee lacag ka maqan tahay oo LSC member ahaa maal gashaday ha yaraataan badnaato FBI-da u sheega iyo Financial Crime Network-ga u sheega Financial Crime Network-ga waa hay'ad hoos imaado Department of Finance marka report bixi dacwo xaree u sheeg lacag inay kaaga maqan tahay LSC waxaa laga yaabaa ay dhaheen joornaaladan in lacagtaadii laga yaabay in lagu helo haddii ay run tahay dowladda maraykanka ee hayso laakiin uma leemaayo midaas aniga ama waxaa laga yaabaa inay run tahay dowladda maraykan lacagta ku dhegan tahay FBI-da ay baarayso ama aysan ku dheganeyn laakiin adiga riskigaasa qaadanin report bixi FBI-da u tag ama financial crime waxaa la yidhahdaa Financial Crime Enforcement Network report ayadana ka bixi waxaa laga yaabaa lacagtaadii ha yaraato ama badaato inay kuu soo laabato waxaana mar kale anigoo maxamed faaraxa idinkaga digayaa inaad maalgashataan shirkadduu sheegayo Francois Ace Alliance la dhahayo waa been waa scamkiina waa dhammaaday shirkad kalena mar dambena Soomaaliya lacagtiina aaminna Soomaali badan ayaa ka maqanaan $100 milyan oo shirkaddan LSC oo ka maqan
soomaalida xamar joogta nairobi kenya jooga hargeysa jooga xataa waa arkay kuwa maraykan jooga columbus jooga meel walba jooga iyo kuwa kanada jooga oo lacag xad dhaafa ku maalgashay shirkaddan war hadda ka bacdi waxaad maalgashanaysaan iska fiiriya iskana eega hana aaminina faarax baa lacag qaatay oo lacag helay xaliimaa lacag heshay oo kuntaa jirta meeshaan daraaddeedaan lacag ku bixinayaa mar dambe yay kuu dhicin ku cibro qaado lssc school ina ugu dambeyntii jimcadii haddeertaan oo taariikhday ahayd bishii sideedaad 15 ay joogsatay maxamed faarax fiideogan la wadaaq dhammaan dadkii maal gashaday lssc bal lacagtooda siday dowladda uga soo qaadan karaan ku heli karaan ha ku helaane bal hadda awoodaan ee u sheega gaarsiiyana shirkad kaloo beena na soomaaliyey ha maal gashanina waa idin salaamayaa qeer idin kaga tegayaa